waxaa dhacda in hooyooyinku marka ilmahooda ooyaan ay dhahaan ha qaadin qaadqaadka ayuu baranaya ama se ay aaminsan tahay haddii qaado inuu qaadqaadka baranayo. Markuu ilmihii gurguuradka bilaabo wuxuu rabaa inuu barto waxyaabaha ku xiran. Kadib hooyadii lugta ayay ka xirtay ilmaha maskaxda ayuu ka curyaamaya. Maskaxdiisu waxay ku koobnaanaysaa halka meel uu markaa ku xiran yahay. ilmihii wuu soo weynaaday 2 ilaa 3 jir ilaa 5 jir buu soo gaaray. wax yar hadduu sameeyo hooyadu waxay sameynaysaa inay garaacdo oo ku qayliso. ilmaha ma garanayo wixii lagu garaacay. Isla wax yar kadib isla khaladkii ayuu sameynaya. ilmuhu wuu soo weynaaday oo wuxuu gaaray da'dii waxbarashada. ilmihii wuxuu garan waayay casharkii loo soo diray ama se sidii wax loo qoray ayuu khaldan. kadib hooyadu waxay bilowday inay caydo oo ku ceebeyso khaladkaas yarka uu sameeyay. ilmihii da'da wuu ka gudbay oo wuxuu gaaray da'dii hooyadu caawinay oo ay hawsha u dirsanaysay. ilmihii wixii loo diray in badanna wuu qabtay inna waa u khaldan. hooyadu waxay jawaab aga dhigtay canaan iyo hiifid. haddaba maxay kula tahay ilmahaas maalinkii uu yaraa ilaa iyo maanta uu 13 ilaa 14 jir yahay aysan hadal dabacsan kula hadlin, hadal naxariis aysan tusin oo markasta ay wax u dirsanayso qaylo ugu direysay oo khaladaadkiisa ay ku ciqaabaysay. ilmo noocee ah ama qof noocee ayaa ka soo baxay halkaas. ilmahaas da'da uu qaangaarka soo gaaro lagama sugayo inuu hadal dabacsan iyo inuu u dhago nuglaado qadariyo hooyadaas. qof walba wuxuu beerto ayuu guranayaa. mid kalena aan kuugu daro, hadalka wanaagsan waa sadaqo. sadaqada markaa bixinaysa kan kuugu dhow ee mudan baa la siiyaa. haddaba ilmahaaga ayaa kaa mudan inaad hadal dabacsan ku dhahdo, si dabacsan aad ala hadasho, dhaqan wanaagsanna aad tusto.